Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhowaada mar kale waa qeybtii saddexaad iyo barnaamijkeenii Naxwoole ama aan iraahdee cashirkii saddexaad iyo barnaamijkeenii Naxwoole. Barnaamijka maanta Naxwoole ee aan noo soo diyaariyey waxa uu ka hadlayaa waa isla naxwihii afka Swedishka ayaan weli ku guda jirnaa svenska grammatik på somaliska. naxwaha af Swedishka oo aan ku sharaxayo af Soomaali. Qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa sida aad u jeedaanba qaybaha hadalka. Haddaad si fiican u eegtaan waa luuqadda iyo qaybaha hadalka ee naxwaha uu leeyahay. Marka qaybaha hadalka marka laga hadlayo waxaa loo kala qaybiyaa dhowr qaybood ilaa 9 qaybood. Laakiin horta intaanan qaybaha hadalka aan soo bandhigin 9 qaybood waa in aan fahamnaa waa maxay qaybaha hadalka ee naxwuhu uu u qaybsamo. Waxaa ka mid ah luuqadda waxa ay ka kooban tahay erayo. Marka aan hadlayno erayo ayaan isticmaalnaa. Erayadaas ayaa naxwo ahaan loo kala qaybiyaa qaybo kala duwan oo qayb walba waxa ay gelaysaa qayb naxweed ayay gelaysaa. oo qayb walbo ka mid ah ayaa waxay noqonaysaa qayb ka mid ah qaybaha loo kala qaybiyo erayada luuqadda oo naxwo ahaanna loo kooxeeyo. Marka qaybahaas hadalka aan ka hadlayno qayb waliba waxa ay leedahay tilmaan gaar ah oo loo yaqaano oo lagu tilmaansado. Waan sii sharaxi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Qaybahaasi loo kala qaybiyey erayada luuqadda ayaa waxaa la isku yiraahdaa qaybaha hadalka. Af Swedish ahaanna waxa ay noqonayaan ordklasser. Qaybahaas hadalka oo aan ka hadlayno ayaa af Swedish ahaan waxaa loo yaqaanaa ordklasser. Ordklasser markii la dhaho marka oo qaybaha hadalka Swedishku ah iyaga waxay leeyihiin dhowr qaybood. Kelmadda ordklass sidaana loo qoraa horta waa inaad ila aragtaan. Waa kelmadan sidaan u qoran ee wareegan ordklasser fartaas jaallaha ah ku qoran qaybaha hadalka. Marka wuxuu ka kooban yahay qaybaha hadalka ee af Swedishka ay ka kooban yihiin ilaa 9 qaybood. 9kaas qaybood waa kuwan aad halkan hadda uga jeedaan ood u jeedaan. Waan soo dhaweynayaa ilaa arka waa kuwan waa substantive oo tusaalooyinkiisa qayba hadal ahaan meesha ay ku qoran yihiin. Verb, adjective, adverb, pronomen, conjunctioner, prepositioner, räkneord och interjektioner. 9kan qaybood ayaa ah 9ka qaybood ee naxwaha ardayga baranaya afka looga baahan yahay inuu yaqaano, kala garanayo si uu u fahmo uuna ugu adeegsado luuqadda si habsami leh. Horey baan uga soo hadalnay waa maxay naxwe iyo ahmiyadda uu naxwaha u leeyahay afka. Marka waa 9kan qaybood qaybaha hadalka ee uu ka kooban yahay af Swedishka. Horey aan ugu sii soconaynaa 3 qaybood iyo 3 ayaa idinkugu soo qaybin doonaa. Ordklasser marka qaybaha hadalka markaan ka hadlayno waa qaybahan hadda u fiirsada. Substantive af Swedish maxaa lagu yiraahdaa qayba hadal ordklasser. Ordklasser marka ay badan yihiin waa 9 waxaan ka hadlayno waa ordklasser qaybaha hadalka. Markii hal kaliya laga hadlayo maxaa la dhahaa ordklass qayb hadal. Qaybta hadalka substantive waa tusaale waa example haddaan idiin siiyo waxaa ka mid ah waad u jeedaan saker, djur, växter, personer, platser, känslor, ämnen. Yacnaa magac ayuu af Soomaali ahaan noqonayaa substantive. Mar dambaan gadaal idinkaga sharaxi af Soomaaligiisa shaxda idiin tusin doonaa. Tusaale magaca shakhsi sida magaca Cabdifataax ama magac meel sida iskool, iskuula, school, buug oo shay ah magaca shay, geedka oo isagoo laftirkiisa ka mid ah tareen, shaarleeg oo ah dareen ama jacaylkii,
mogadisho oo iyaduna magaalo ah ama stockholm. kuwaasi waa substantive. Substantive-ku waxa kale lagu yaqaanaa waxaa qaata article ayaa galo n iyo et ud baa galaan. tusaale ahaan qaarkood n schoola, n book, et trade, sidaasi la mid ah. marka substantive-ka waa magac, waa ereyga astaantiisa ama calaamadda lagu yaqaano. substantive waa magac. waxaa sidaasi ku xiga verb. verb wuxuu noo sheegayaa wuxuu qofku samaynayo, waa ficilkii ama fal hawshii socotay ayuu verbigu sharaxayaa. haddaad halkaa u fiirsataan, verb berättar vad någon gör. waxaa ka mid ah guur soconaya, äter, skriver, talar, läser, springer, lagar, hoppar, kör. waxaasoo dhan waa afcaal ama fal uu qofku samaynayo, hawl uu qofku qabanayo. tusaalooyin ayaa noo soo socda. midda kale mid ayaan u dul istaagi doonaa oo aan ka bixin doonaa sharaxaad qoto dheer mid waliba, oo maalin waxaan siin doonaa substantive-kii qaybihiisa, dhowr casharaan ka samayn doonaa. ficilka verbka sidaasi la mid ah, adjective-ka sidaasi la mid ah aan ku socon doonaa hadduu ilaahay idmo. adjective wuxuu isaguna sheegayaa waa kana, adjectiven talar om hur substantiven ser ut. bal halkaas u fiirsada. wuxuu sheegayaa sida, waa adjective-ka waxa laga hadlayo, waa sifa macnaheeda adjective-ku. waxaa ka mid ah adjective-ka haddaan usoo noqono, waxaa ka mid ah röd, glad, fin, ful, bra, snäll, söt iyo kuwo kaloo badan. waxaanoo dhan waa tusaalooyin kooban. marka sifaha wuxuu ka hadlaa, uu wax ka sheegaa magaca. tusaale ahaan, en fin flicka. fin waa adjective, en waa tirooleydii ama waa article, fin waa sifihii, flickana waa substantive oo magac ah. marka tusaalooyin baa gadaal nooga imaan doona. sidaasi la mid ah, adverb ayaa jira oo falkaab ah af soomaaliga. adverbguna waa group aad u weyn, isaga keligiibaa dhowr cashar noqon doona hadduu ilaahay idmo insha allah. marka hore waxaan ku bilaabi doonaa kuwa kooban oo iyaga aan casharadooda badnayn. markaan kuwa xarayno kadib ayaan kuwa hawshoodu badan tahay oo casharadooduna badnaan doonaan ayaan insha allah gadaal kasoo duubi doonaa. marka adverbigu waa ka, waxaa ka mid ah alltid, fort, ofta, nu, mycket, när, hemma, inte. way badan yihiin iyagana iyo kuwo kale oo badan. waxaa sidoo kale jira pronomen oo magacuyaal ah oo magacii bedelkiisa intii la isticmaali lahaa cali isagaa la isticmaalayaa. markaan hadlayo intaan dhihi lahaa cabdifataax wuxuu akhrinayaa cashar, yani yoog aan leeyahay aniga, magac uyaal siduu macnihiisu af soomaaliga yahayba. pronomen magacuyaal, magacii ayaa meesha looga bedelayaa. yoog, han, hun, ni, vi, os ayaa ka mid ah. conjunctionerku iyagu waa xiriiriyayaal, waxbay isku xiraan. waxay isku xiriiriyaan arrimo la rabo in la isku xiro oo la iswaafajiyo, ama la isu barbar dhigo, ama la isku daba xiro ayay xiriiriyaan. waxaa ka mid ahna och, men, för, om, eller, att, så, utan, därför iyo kuwo kale oo badan. waxaa kaloo jira tusaale iyaguna propositioner. propositioner waa meeleeyayaal, waxbay weelaynayaan oo meel ay ku hagayaan iyo ku ridayaan. waa erayo uu ka mid yahay sida e dhexdiisa, til ku socda, under hoostiisa, pu dushiisa. ereyadaasi ayaa ka mid ah propositionerka. waxayna noo sheegayaan walaxda ama qofka ama shaygu halka uu yaallo, ama halka uu ku socdo, ama halka uu ku sugan yahay, iyo halkaa buu isaguna propositionka sheegayaa. waana sida macnihiisa af soomaaliga meeleeye, waxbuu meelaynayaa. interjectionera jiraan oo iyaguna ah dareen sidayaal, ama aan iraahde dareenkay sheegayaan, dareenkii bay u yaalaan. tusaale ahaan, waxay ku dhahayaan ay, meel baa wax kugu dhacay, waad xanuunsatay, ay baa tiri, oy baa tiri, ama caawinaad baa dalbatay, help, help, yelp, yelp, yelp baa tiri. dareemaha noocaas ah fi ayaa jirta. kelmado badan baa jiraan, mid baan u dul istaagi doonaa, keligeed ayaan maalin cashar ka bixin doonaa insha allah. interjectioner waana erayo
tusinaya reaction yani falcelin uu qofka samaynaya iyo dareen ayay muujiyaan ereyada interjection. reegna uud ayaa jira oo ah tiroley, iyagu waa 1 2 3 iyo koowaad labaad saddexaad afraad 1 2 3 4 5 första andra tredje fjärde iyo sidaasay kusii soconayaan iyaguna. marka uud kalaasirka intaana u gudbin exambalada kale waxay ku fiican yihiin inuu qofku kala garto, ay ku fiican tahay, waa muhiim aad iyo aad bay qofka muhiim ugu tahay inuu fahmo. marka tusaalooyin ayaan idin tusinayaa oo aad iyo aad uga bogan doontaan insha allahu tacaala, oo hal tusaale ayaan dhowr gelinayaa hadal qayb hadal dhowr halkii ereyba waxaan gelinayaa ama hal jumlad ayaan isku dayayaa inaan u isticmaalo dhowr uud kalaasir qaybo hadal. waxaa ka mid ah hadda tusaalahan fiiriya, waan soo dhaweynayaa. waxaan tusaale idinkugu siinayaa arag han går till skolan. han waa pronomen, isla jumladii baan hoos u dejiyey, bal eeg haddana waa farta guduudan un fiiriya. han går till skolan iyo kelmadda går waa verb, waa falkii, hantii waa magacuyaal, till skolan till waxay noqotay bal fiiri proposition, schoolanna waa substantive, waa magacii, magac naxweed. marka jumladaas haddii lagu dhaho kala sheeg kal ereyadaas oo kooxeey oo dirtoodii sheeg haddii lagu dhaho sidaasaa ugu abtirinaysaa. waxaad leedahay han waa pronomen, goor waa fal, til waa proposition, schoolanna waa magaca, weli waa magaca, waan usoo noqon doonaa sharaxaadeede bestemde form ah, magac la garanayo waay, waa iskuulka iskuul la garanayo waay. tusaalaha kale fiiriya, en glad pojke springer fort. jumladaasa iyadana waxaan u isticmaalay 3 tusaale. en waa reegna uud, waa tiroleydii, ama markaasi waa article sidoo kale, waa qodob. en glad waxay noqotay bal fiiri meesha waa sife, waxay sifaynaysaa wiilka waxa uu yahay, waa faraxsan yahay, wiilkii bay sifaynaysaa, wax ka sheegaysaa. pojke waa substantive, marka adjectiveku substantiveku waa pojke, adjectivekuna waa glad. springer waa fal, waan ognahay, waan kusoo gudubnay, waan soo aragnay tusaalaha falka iyo substantiveka. hadda saddexdan tusaalaan ka rabnaa meeshaan, reegna uud, adjective iyo adverb. haddaa halkaa u fiirsatid waxaa ku qoran adverbiga foot buu noqonayaa, waa sida falkii buu kabayaa. springer foot, foot waa sida uu u orday, sidee buu u orday? foot maxay tahay? dhaqsi, degdegsiin, si dhaqso leh ayuu u cararay, ayuu u orday, waa cajiib. foot waa adverb. ku soo soco interjectioner. interjectionerka waa dareen tusayaal, dareen tusa, verb ayaa iga galay, waa khalad, waa dareen tusayaal. dareen tusaha marka oy buu yiri, bal u fiirso, oy han springer och läser. oy waa dareen marka, waa wuxuu la fajacay ama la cajabay ama uu ka helay ama uu ka naxay ama uu la yaabay. si doonto dhowr oydu baa dhowr qayb loo isticmaalaa. oy keligeed waa dareen sidii markaas, waa waxbuu la fajacay, waryaabkan arka oo kale way macnaheeda, wuu yaabay ama kaag waay. marka han springer wuu ordayaa och läser, war bal fiiriya, wuu ordayaa waxna wuu akhrinayaa, akhris iyo orod buu israaciyey ninka qofkan. marka haddaad hoos u soo degatid aad fiirisid, okna waa xiriiriye, waa conjunctioner. maxay isku xiriirisay? springer och läser waxay isku xirtay, isagoo ordaya ayuu haddana wax akhrinayaa. laba walxaad bay hal ka dhigtay, isku xirtay, bay hal meel gelisay octo. octona waa conjunctioner. waa sii soconaynaa tusaalooyinkeena gabagabadii barnaamijka. waxaa aad iyo aad muhiim u ah, si qoto dheer ayaan qayb waliba uga hadli doonaa hadduu ilaahay idmo, laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad soo xifdisaan magacyada qaybaha hadalka oo muhiim u ah naxwaha qofka inuu fahmo. waxaa aad muhiim uga horta inuu erayada yaqaano. af swedishku marka sidan ayaa lagu yiraahdaa uud kalaser, waa qaybaha hadalka. waxaana ka mid ah substantive waa magac, adjective sifo, verb fal ama ficil, pronomen magacuyaal, adverb falkaab, proposition meeleeye,
conjunction xiriiriye, interaction dareentuse, regnauud tiro ama tiroley. sidaasayna tusaalooyinkii dhinacan kale ay u garab yaalaan aad u jeedaan ayay u garab yaalaan. marka sida marka aan horay idinkugu sheegay bilowga hore waxaan ka hadlayno waa qaybaha hadalka oo ay luuqad leedahay. erayadaas aan soo xusnay oo dhan macnahooda naxwo ahaan 9kaa qayb hadal soo xifdiya. insha allah soo qora wixii aad rabtaan iyo qaybtii aad rabtaan inaan ka hadla naxwo ahaan waan soo qaadanayaa waana ka hadlayaa. waxaan bilowga hore ku bilownay haddaad xasuusataan oo aan iri luuqadda iyo qaybaha hadalka oo aan idiin iri luuqadda waxa ay ka kooban tahay erayo. erayadii aan ka hadlaynay waa sidii haan, guur, til, iskuulan. haan waa eray, guur waa eray, til waa eray, iskuulanna waa eray. waa 4 eray. jumlad bay sameeyeen, jumladiina macnay samaysay. sidaasaa naxwaha loogu kala aqoonsadaa erey weliba iyo qaanada uu kaga jiro naxwo ahaan. haan pronomen bay noqotay, naxwo ahaan qaybta hadalka ee magacuyaal bay noqotay pronomen. guur verbi bay noqotay, waa ficil ama fal, qaybta ficil bay qaadatay. waataan lahaa erayadaasi naxwo ahaan markii saa loo qaybiyo erayada kala duwan erey weliba wuxuu leeyahay astaan gaar ah oo lagu yaqaano naxwo ahaan loo yaqaano. marka guur waa verbe, waa fal. til waa proposition, waan ka hadalnay, waa proposition, waa meeleeyihii. iskuulanna waa substantive. balonfir inta dambe iskuulan raacaysa inuu bestemde form yuhu sheegaya iskuulkaasi iskuul la garanayo uu yahay. marka waxaan ka hadlayna waxa waaye qayb walba waxa ay leedahay ama erey weliba wuxuu leeyahay tilmaan gaar ah oo astaan u ah oo lagu yaqaano oo looga dhex garanayo oo lagu dirsooco aan dhihi karnaa xitaa looga garanayo ereyada kale markii naxwo ahaan la tilmaamayo. marka qaybahaasi hadalka ayaa af Soomaaliya lagu yiraahdaa qaybaha hadalka, af Swedishna waxaa lagu yiraahdaa ordklasser. saas darteed waxaan idiin soo dhaweynayaa erayadan inta ku qoran aad u jeedaan micnaha erayada waa naxwe, grammatik, luuqad waa språk, erey ama kelmad uud, qayb hadal waa deel ama class, qaybta hadal qayb hadal uud class. waad u jeedaan halkan dhinacan micnaha erayada aan ku macneeyey. sidaas darteed waxaa intaasi ku dhan casharada inay dheeraadaan ayaan diidayaa. intaan ayaan kusoo gabagabaynayaa. waa anigoo ah cabdifataax baana caymuun oo idinkaga sii tegaya mar kale iyo kulanti dambe oo xiise leh iyo barnaamijkeena naxwoole oo aan idinkugu soo gudbin doono naxwaha. hadda waxaan ku bilownay afka Swedishka oo lagu sharaxayo af Soomaali. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.